gabartii uu gacanta ka qabsaday gudaha la galay gudaha door la galana gabartii waa faraxumbiyay kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha ku xidhan channelkini Baynta Wararka fadlan haddii aad nagu cusub tahay saad nooga barateen haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato channelkeena waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa subscribe saatid sidoo kale kambareelka furatid sad la socoto fiidiyodan soo gelina maalin kasta ama maalin dhaaf qalba sida waqtigu noogu saamaxo muuqaalka intiisa yar soo daawateen ama clipka yar intiisa badan aad u gudagali doontaan ayaa waxa uu sheegayaa in kufsigii saddexaad uu ka dhacay magaalada Muqdisho muddo hal week gudaheed ah ama muddo 5 cisho gudaheed ah ayaa waxa ka dhacay kufsigii saddexaad iyadoo la kufsaday in yar oo 5 jir ah ama wadada shaneedka ku jirta ama wadada shanaad inantan yar ayaa waxa kufsaday wiil warbixinta oo dhameystiran waxa aad kala socon doontaan isla muuqaalkan dhamaadkiisa amaba muuqaalka bartankiisa anagoo idin soo gudbin doona wiilka ama aabihii dhalay inan taayar oo ka waramaya sidii loo kufsaday sidii loo kaxaystay qaabka loo kufsaday kufsigan ayaa waxa maaha kii koobaad ee ka dhaca balse waa kii saddexaad ayaa gudaheed ay ahayd maalintii la kufsaday ama markii la kufsaday Xamdi Maxamed ayaa la oo ah inan yar inan jaamacad ka baxday magaalada Muqdisho isla magaalada Muqdisho lagu kufsaday deedna laga soo tuuray fooq 3 dabaqaha fooq 6 dabaqaha kadibna ay go'go'day idantii ay dhimatay fooqii alxamdulillah waa la soo sheegay in la gubay fooqii lagu kufsaday gabadha Xamdi isla fooqina la gubay isla markiiba kacdoon ay shacabku sameeyeen daraadeed kufsiga ayaa waxa ka sii horeeyay kufsi kale oo sanad ka hor ama sanad ka hor ka dhacay magaaladaasi Garowe kufsigii aad ka u naxdinta badnaa ee gilgilay qulubta shacabka Soomaaliyeed waa kufsigii koobaad waa kufsigii Caaisha yar run ahaantii ma xasuusin karo kufsigii halka ka dhacay balse muuqaalkan la daawado run ahaantii naxdinta leh gabartii uu gacanta ka qabsaday gudaha la galay gudaha door la galana gabartii waa faraxumbiyay ayadoo qayladeeda la maqlay waa la tagay hadii loo tagay ninkaana ba haysto waa gabartii laga soo waday ninkina intaan aniga soo socday telefoon baa laga soo wacay waa la laqaaqay gabar la dhaatay baawar saartay dhinacaas gubad leeyahay marka ninkii ma la qabtay geestay kufsiga mise uu baxsaday uu maqayahay walaashiisa ayaa guriga ka waday guriga walaashiisa uu gubad leeyahay jira marka in gabadha la kufsay see lagu ogaado waxa lagu ogaaday saldhig ayaan tagay refertan qaatay refertadii diferadangii ayaga cadeeyeen dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in xuquuqdeeda laga qabto gabartayda waxa lagu sameeyay ujeedaan xaq aan leeyahay waa in laga qaadaa sharciga islaamka shariicada islaamka waa in lagu xukumaa lagu cadeeyaa oo guriga xaafadda islaamiyadeeda wax ka soo qaadanayso oo guriga ku dhagan albaabkeedu deganaay gabartii uu gacanta ka qabsaday gudaha la galay gudaha door la galana gabartii waa faraxumbiyay ayadoo qayladeeda la maqlay waa la tagay hadii loo tagay ninkaana ba haysto waa gabartii laga soo waday ninkina intaan aniga soo socday telefoon baa laga soo wacay waa la laqaaqay gabar la dhaatay baawar saartay dhinacaas gubad leeyahay marka ninkii ma la qabtay geestay kufsiga mise uu baxsaday uu maqayahay walaashiisa ayaa guriga ka waday guriga walaashiisa uu gubad leeyahay jira marka in gabadha la kufsay see lagu ogaado waxa lagu ogaaday saldhig ayaan tagay refertan qaatay refertadii diferadangii ayaga cadeeyeen dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in xuquuqdeeda laga qabto gabartayda waxa lagu sameeyay ujeedaan xaq aan leeyahay waa in laga qaadaa sharciga islaamka shariicada islaamka waa in lagu xukumaa